waxaan leenahay khaladka aad gashay waanad ka noqotaan waayo waxa weeyaan farxadan maanta oo kale dawadayaal hadda dhinaca bidix waxa fadhiya wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo maanta imtixaanka ka furay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer saacadihii u dambeeyay shirkadda isgaarsiinta Telesom waxay fariimo u direysay ardayda dhameeyay imtixaanka ee maanta loo shaaciyay wasiir soo dhawow bal arintaasi ka war بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيمانتوا شنغاتكي بشر سيديداد لبا كن إلى 20 waxaan sii deynay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee fasalada sideedaad iyo fasalada afraad dugsiyada sare waxaan aad uga xumaanay maanta inay soo baxeen in markii lala qaybsan lahaa farxadda ardada inay soo baxday in waalidiin badan iyo arday badan ay awoodi kari waayeen inay internet galaan bogagii lagu xayeysiinayay ee ku xay gaar ahaan barnaamijkan aqoon maal oo shirkadda Telesom ay sii deyso ay ku soo baxday in lacag dheeraada caruurtii la saaray halkii la damaashaadi lahaa la dabaaldegi lahaa la qaybsan lahaa farxadda sidaa awgeed waxa weeyaan waa la xisaabtamaynaa cid kasta oo waxa ku kacdayna talaabo laga qaadi doono insha Allah ku haboon shirkadana waxa leenahay gaar ahaan ardadan de maanta imtixaankooda loo jeediyay sugay intaas oo sanood wax baranayay 12 sanood wax baranayay ama 8 sanood wax baranayay in maanta la yiraahdo markii ay sugayeen in ay arkaan resultgoodii ama maxsuulkoodu soo bixay imtixaanka soo baxay in lacag la yiraahdo lacag ha bixiyeen dheeraada si ay u arkaan jawaabtooda horta waxaan sheegay dhamaan ardada iyo waalidiinta in imtixaanada resultgoodii ay yaaliin goobihii goboladii oo dhan gobol kasta ay hadda la gaarsiiyay meel kasta la geeyay sida awgeed aan wasaaradda waxbarashadu ay meel kasta ku diyaarisay goob kasta waxbarasho dugsiyada haday tahay goboladii haday tahay in ardadii la og yahay loona gudbiyay maamulayaashii iyo dugsiyadii iyo goboladiiba imtixaanadu waxay qof kasta helay iyo maadadu helay iyo wuxuu ka helayba laakiin maadaama dadku aad u jecel yihiin inay isticmaalaan social media oo gaar ahaan ay shirkaddan Telesom isticmaashay aqoon maal oo bogeeda ku xayeysiisay in arinkaas oo ay ku dalceen lacag dheeraada aad baan uga xunnahay wasaaradahan arinkan insha Allah talaabada ka laga qaadi doona. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.